halkani waa janalka gunta wararka ku soo dhawaada wararka maanta aan idin helana waxa ugu dooroon gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo kormeer amni xalay ku sameeyay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo baaq u diray ergada ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta Galmudug faahfaahin ka soo baxaysa deebka kacay mid ka mid ah wiishashka dekedda magaalada Berbera iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo geeriyooday u diyaar garooba goordhow warkeena oo dhameystiran maqal aragti wanaagsan daawadayaal mar kale halkan waa gunta wararka haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaaladeena waxaanu ku bilaabaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xalay kormeer waxa uu ku sameeyay degmooyinka Shibis Boondheere Shangani iyo sidoo kale Karaan kaas oo ujeedkiisu ahaa u kuurgelida sida maamulayaasha degmooyinka iyo saraakiisha amniga ee saldhigyada ay habeenkii ula falgalaan howlaha ammaanka kormeerka uu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ku weelinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin ka socotay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha dalka kormeerkan dhinaca ammaanka ee uu sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii dambe uu soo hagaagayay ammaanka magaalada inkastoo mararka qaar ay dhacaan falal liddi ku ah dhinaca ammaanka gunta wararka ayaa wili nagala socotaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa baaq waxa uu u diray ergooyinka shirka dib u heshiisiinta Galmudug ka qayb galaysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo ay ka qayb galayaan ergooyinka matalaya dhammaan reeraha Galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddiga qabanqaabada shirka uga mahadceliyay dadaalkii dheeraa oo ay u galeen isu keenida bulshada Galmudug waxaana shirkan loogu gogol xaaraya dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeynaya danaha reer Galmudug kana qayb qaadan doona horumarka guud ahaaneed ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Galmudug ahlu sunna dhammaan bulshada reer Galmudug ciidamada amniga ee ku sugan iyo dhammaan intii gacan ka geysatay dhismaha Galmudug dhameystiran oo la soo gaarsiiyo heerka maanta ay marayso waxaana uu shirka u rajeeyay in uu guul ku soo dhamaado ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa bishii Juun ee sanadkan deegaanada Galmudug ka bilaabay dadaal guddigiisu ahaa guul geerida geedi socodka qorshaha Galmudug dowlad goboleed dhameys ah oo loo siman yahay waxaan dadaaladaas soo dhaweeyay beesha caalamka iyo reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed faahfaahinaya waxa ay ka soo baxaysaa dab qabsaday mid ka mid ah wiishashka dekedda magaalada Berbera wararkan ka helina dekedda magaalada Berbera ee maamulka Somaliland ayaa waxay sheegayaan in xalay dab xoogan uu qabsaday mid ka mid ah wiishashka dekedda magaalada Berbera oo dhawaan xariga laga jaray dabka ayaa waxaa si gaar ah u qabsaday mid ka mid ah wiishashka dekedda Berbera oo dhawaan madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi xariga ka jaray waxaana dabkaas ka dhashay khasaare hantiyadeed oo badan maareeyaha dekedda magaalada Berbera Saciid Xasan Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dabka uu ka bilowday meel u dhow wiishka isla markaana uu sii faafay qaybo ka mid ah markii dambena uu qabsaday mid ka mid ah wiishashka dekedda goobta uu dabka ka kacay ayaa si degdeg ah waxa u gaaray gaadiidka dabdamiska kuwaas oo ku guuleystay daminta dabka oo socday dhowr saacadood waxa kaloo uu sheegay Saciid Xasan Cabdullaahi wiishka uu soo gaaray khasaare badan oo hantiyadeed isla markaana haatan ay socdaan baaritaano ku aadan waxa sababay dabkaas ugu dambeyntii maareeyaha dekedda magaalada Berbera Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa tilmaamay in wax khasaare nafeed ah uusan ka dhalan dabka hase yeeshee uu jiro mid hantiyadeed ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa geeriyooday war goordhow soo dhacay ayaa sheegay in uu geeriyooday madaxweynihii dalka Zimbabwe
Robert Mugabe oo ahaa 95 jir isagoo xilka wareejiyay sanad ka hor. Robert Mugabe ayaa waqti dheer ka talinayay Zimbabwe, waxaana uu ahaa nin da' laakiin muddooyinkii dambe waxa uu ahaa bukaan socod maadaama uu ahaa 95 jir. Wasiirka waxbarashada Zimbabwe ayaa Twitterkiisa ku qoray nabad ku naso Robert Mugabe. Warkii oo aad kala socoteen janaalka Gunta Wararka waa inaga intaas. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka muuqaalkeena. haddii aad naga cusub tahay subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena ugu horeeya. mahadsanid.